waxaa maanta barqadii soo gaaray magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan South Africa Said Sharif iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Barrow iyadoo imaashahan salka ku haya casuumaadii dhawaan ay u sameysay dowladda Koonfur Afrika diblomaasiyiintii Soomaaliyeed ee safaaradaha Soomaaliya u joogay wadamada caalamka. ugu horreyn waxaa hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Jamaal Maxamed Barrow isagoo sheegay in socdaalkiisu ku saabsan yahay casuumaad uu ka helay dowladani Koonfur Afrika si loo adkeeyo cilaaqaadka labadani dal. booqashadaydu waxay ka jawaabaysay casuumaad aan ka helnay wasaaradda arrimaha dibadda ee South Africa ama Koonfur Afrika gaar ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Koonfur Afrika taasaan ka jawaabaynay taasaan u imaanay si aan wadada ugu xaarno in xiriir fiican dhaxmaro ananka iyo Koonfur Afrika. dhanka kale waxa uu safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Koonfur Afrika ka hadlay waxqabadkii safaaradda iyo socdaalka ay fududeeyeen maalmihii la soo dhaafay isagoo shacabka Soomaaliyeed u sheegay in dhawaan ay ku safri doonaan baasaboorkooda. laba arin oo kow in ummadii Soomaaliyeed oo halkan ku xayirneed oo ku xanibneed oo muddada fara badan inay dalkan ka tagaan oo Soomaaliya aadaan loo diidanaa ayaan waxaan kala xiriirnay Department of Home Affairs kuwaasi ayaan fududeynay ilaa haddana waxaa noo socda arrinkaasi waxaan ku guuleysanay oo hadda aan u sheegnay ummadda Soomaaliyeed inay leeyihiin passport genuine oo electronic oo la aqoonsan yahay oo Soomaalidu ay leedahay waxaana u sheegnay baasaboorradii hore oo kii cagaarnaa iyo kuwa kale oo waxaas oo dhan inaanan jirin kan dawladda ay leedahayna kan hadda ay iyagu aqbaleen ay tahay marka socdaalkii oo aad xanuunkiisa u badnaa oo ay la kulmeen Soomaalida ayaan fududeynay kaasna waxaa waaye mid ilaa hadda socda tirada Soomaaliyeed oo ka baxday South Africa oo hadda aaday Soomaaliya ilaa 150 waaye muddo bil waxaan rajaynaynaa baasaboorka sida wasiirka uu sheegay in la aqoonsado kadibna isagaasi lagu dhoofo laguna soo noqdo. Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale Somali Channel South Africa.